waxaan ku soo dhaweynayaa agaasimaha wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliland gudoomiye ku-xigeenka xogahayaha xiriirka kubadda cagta xogahayaha gobolka iyo gudoomiyaha gobolka xiriirka iyo marti sharafta kale ka soo qayb gashay waxaan leeyahay ku soo dhawaada gobolkii Gabiley ku soo dhawaada gobolkii Cagaarlaan mar labaad anigoo xubinta soo dhaweynta uga bixi doona wixii ajada agaasimaha iyo gudoomiyaha uga bixi doona waxaan leeyahay ku soo dhawaada qacmo furan ku soo dhawaada safarkani wuxuu daarnaa isxog waraysi iyo in runtii aanu kala qayb galno dhalinyarada gobolka Gabiley tartanka halkan ka socda bisha barakaysan sidoo kale kooxaha heerka koobaad iyo heerka labaad ee ka dhisan gobolka Gabiley oo iyana aanu caawa doonano inaanu kulamo la qaadano kulamadaas oo runtii ku saabsanaan doona sidii tababaro loogu furi lahaa macallimiinta gobolka Gabiley kooxaha layliya safarkan runtii waxaanu ku ahayn oo nagu hogaaminayay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Cabdirashiid Caydiid sidoo kale waxaanu ku soconay gudoomiye ku-xigeenka mudane Khadar Jilaal iyo xoghayaha guud ee xiriirka kubadda cagta sidoo kale waxaa gogol xaad sii sameeyay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka Gabiley iyo xoghayaha xiriirka kubadda cagta gobolka Gabiley iyo isuduwaha gobolka oo runtii ka sii shaqeeyay in kulamadani sidaa u dhici doonaan aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa runtii bahda saxaafadda oo iyaguna garoonkan ku sugan insha Allah tacaala waxaan rajaynaynaa inaan ciyaarta si fiican u daawano wixii ka dambeeyana inaanu kooxaha la kulmi doono bacda afurka insha Allah wada ku soo dhaweynaynaa gobolka halkan waxa ka socday tartankii rabadaanta oo ay qabatay qolol leeyahay asaas oo muddo socday runtii waxaan uga mahad celinayaa tartankan halka soo gaadho xiriirka kubadda ciyaaraha ee gudoomiyaha xiriirka kubadda ciyaaraha Gabiley iyo bahda sportska Gabiley oo suurtageliyay in wareegin halka soo gaadho idinkuna waan soo dhaweynaynaa iyo hawsha kale wadaama الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فرحت وين بيننا tahay maanta inaanu nimaadno magaalada Gabiley gobolka Gabiley caasimadiisa ah isla markaana aanu soo kormeerno ciyaaraha ka socda ee rabadaanta waxa ay ugu helinaya xiriirka kubadda cagta gudidoodii fulinta xubnihii ugu sareeyay gudoomiyihii gudoomiye ku-xigeenkii iyo xogayihii guud waxaan u mahad celinaynaa isuduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Gabiley iyo gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee gobolka Gabiley iyo xogayaha waxaan u mahad celinaynaa xubnaha golaha deegaanka ee hadda nagula sugan iyo dhammaan golaha deegaanka uu maayirku u horeeyo oo mar walba gacan siiya ciyaaraha iyo badhasaabka gobolkaba waan u mahad celinaynaa siday mar walba heegan ugu yihiin kor u qaadida iyo horumarinta ciyaaraha ee aanu wasaarad ahaan mar walba isaga kaashano aad baan ugu faraxsannahay ujeedada socdaalkayga gudoomiyaha taataabtay sidii macallimiinta xirfadooda kor loogu qaadi lahaa kubadda cagta oo ay mas'uuliyadda xiriirka kubadda cagtu leeyihiin iyo inaanu ka wada hadalno xilliga uu bilaabmayo horyaalka kubadda cagta ee gobolka Gabiley oo qabsoomi doona insha Allah waqtigaanu isla garanno sidoo kale kubadda kolayga horyaalka kubadda kolayga oo isaguna qabsoomi doona inaanu labadaaba waqtigiisa isla garanno isla markaana qorshaha aanu anagu wasaaradahan u dejinay inaanu la wadaagno si ay ugu tala galaan annaga iyo xiriirkuba qorshaha noo qorshaysan sidii ay ugu tala gali lahaayeen waxa kale oo iyadana aanu ka wada hadli doonaa hadii la yiraahdo championka iyo sidii looga soo qayb gali lahaa isla caawa hadii la yiraahdo mas'uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ayaanu insha Allah ka wada hadli doonaa magaalada Gabiley waa magaalo bulshadeedu aad u badan tahay kor u kaceeda iyo horumarka ciyaaraha ka socdana aad iyo aad aan ugu bogaadinayno iyo sida wanaagsan ay wada shaqeeyaan golaha deegaanka ula shaqeeyo ciyaaraha oo aan oran karo waa gobolka koobaad ama gobolka labaad ee golaha deegaanka ay gacan weyn siiyaan ciyaaraha aad iyo aad baan iyadana uga mahad celinaynaa waananu la daawan doonaa maanta ciyaarahaas mas'uuliyiinta gobolkana ciyaarahana aad baan ugu amaanaynaa kaalinta weyn ay u hayaan gobolka. Wassalaamu calaykum.